waan ka baxay reerkii aan ku jiray Madhibaan no more midgaan dambe no more Madhibaan dambe no more hawiye dambe no more Somaliland soo kaligeed ma goosan Soomaaliya kama goosan ana caawa iyo tiimkaygu waan ka goosanay Somaliland waxaan u goosanay dawladda madaxa banaan ee Khaatumo ee ma garanaysaa ee Sooliisanaag laga xukumo ee caasimadeeda ay tahay ma garanaysaa buuhoodle mise Sacanood bandhaha sidaa daraadeed yaa waxa weeye waxaan hay caawa laga bilaabo naag daarooda naag ma garanaysaa daarood Ismaaciila ay duubaya hooyadii wasaa shimbirtu wala bay ku dhajin doonaan nabadayna ku kala saxiiraan waa mahadsantiin daarood meel kasta aniga un baa ku xumaan weyna wallahi waa dad qalbi fiican ee dadka Madhibaanka waxay dhigi jireen bilbaantaha la degan maxaa daarood ka rabtaa kuwa ma jirtin kale maxaa daarood ka rabtaa dad daarood wadana ku diliya kuna nooleynaya leey ma fahanteen adeerayaalo dadkii aniga ii hiilinayay shalay markan hablaha isdilay suuray suuq qaadanayay meelaha ila orday xamdi fiifale qalbigooda inaan dhaawaca ma rabo laakiin qalbigooda waxaan dhaawacayaa kuwa xamdi aawo intay u soo heshiyeen naag leeri hana way inta soo qaasto ka haystaan suuqa iga qaraacay hada ma fahmaysaa marka ala kulli xal fiifa ma garanaysaa walaalaha reer Somaliland waxba inii ma qabo inii suuqa iga qaraacay guul iyo gobonimo dadkaygi baa tihiin walaalahay baa tihiin mid inii ma qabo inigo caawa beerka iga tumay ana dibba beerka morgana adduunka ugu nacabtaan baa inagu qoray bismillahir rahmanir rahim waxaad ku soo dhawaataan macallimo journal maanta waxaan idin falanqeyn doonaa xamda kalgacal iyo video keeda ku soo dhawaaw macallimo waa dhawahay aad u dhawahay adigana ku maasan tahay wareysiga sharafta la ay qaadaysid wixii su'aal ay weydiisan insha Allah isku dayna ka jawaab doono ku saabsan xamda kalgacal topiga xamda kalgacal videogan ay ka hadlayso waxay aad uga hadlaysaa qabiilada kala duwan ee Soomaaliya maxaa ka leedahay horta arrinta qabiilada والله إني وقت حمد قرقع الجبر عن وايو والله كسايا أنا حمد قرقع المعلم برنا كو وحنك برت قبيل أيضا أفلق دينيس عينيس بس صومالي الجليس لكن هذا أفعالاس من قلينه وجبر صومالية وكمل قبلها صومالي شرفت ما شاء الله قبل إنه كل شرف إليهن مركا وين دقيستي هذا الكذا ده كانوا يدقيسون دونان أو مش دقيستي طبعا مركا waxaan dhihi lahaa un dee waa gabar Soomaaliyeed ku xadgudbayno waan aad u farxaa in runtii dad ay shalay ay caynaysay ee maanta ay leedahay camal waalehay way ma sha Allah kulba intaas ma ka sugeynay ay inta lamidka ah marka dad waxaan arkay comment qaldan soo qoraayo laakiin dadka ay waxaan dhihi lahaa gabadha ka daga faraaka qaado gabar Soomaaliyeed oo walaashiin ah marka waa ku faraxsanahay Xamdi Galgacal qabiilka Axmed maxaa la yiraahdaa macallimo qabiilka waxa waaye waa waxa wadankeena inaga soo waday qurbaha ina keenay oo intaas milyan Soomaali ah iyo wadamada caalamka ay degan yihiin sidee u aragtaa marka qabiilkii na soo raray ee qurbaha ina keenay in wali aan ayadoo 2022 la geli rabo wali inagu dhigan tahay wala hortani oo qabiil marka qabiil la dhaho horta seedaba qabiilka muxuu qabiilada marka laga hadlo qabiilka quraanka loo sheegay quraan loo sheegay waxa kamid ah in isku aqoonsado marka laakiin dadka inta badan qaab qaldan u isticmaalaan oo qabiiladii waxa la mid quraan marka waxaan dhihi lahaa sheegay 2022 hadda soo dhow oo nooga dhiman isbuuciyo sababtoo dhamaantood ognahay marka qabiilkan de anaga Soomaali hadaan horta ku noolnahay waayo dastuurkeena nooga qoran 4.5 taila laga gudbo taila laga gudbo marka koo waxaan dhihi lahaa waxaan geedka hoos laga saxin kor ma saxmaan marka hoos la soo saxo 4.5 gudaha lagu tuuro xaas macnaha basically oo root-ka la soo saxo marka waxaan qabaa siyaasiyiin dib isku laabtaan arrintan naska anaga soo laxaan soo saxan okay وما صدق هذا حاجة سهم ربك وجوشه جاي معناها قبيل كوا واحد إنه صار رأي إنه سوق حيدال كينا فرنت عدي لجاه له وضم هذا وضن كان دقن تيسويد وعرفت أنت الصومالية دقن وضم هذا كانوا عالم كان سيدي وكلا يتري بدنيين صومالية دقن هذا ما أملا ما حد أملا نسا ما أملا نسا إن صومالية قربها دقن يا كوا دقن محل هذا وضن كي هايو يا كلا دي كلها هاي إني أبدينهين قف قبيلات كجعل ضد قبيلات كجعل ضد قبيلات وأكل صارت هذه قبيلات إيه قبيلة وكل صارت قبيلات ضد كجعل يا مودي سما ضلك هاي جوجا مثل ضلك دبد جوجا
والله إنه تاو إسكع عبد هاي أنا سوينا ما أنت إيمانه هرت يقول رئيس قبيلة قار عمرته صح marka xagga joogay Franji hoose lee kasay talqa hoose marka intii maade ay la kala baray marka in marka ay marta 10 lagu dhigaa loo xal lagu dhigaa dadku waxa leedahay loox ma looga soo dhigay marka waxaan dhihi lahaa qabyaalad bilow ilaa dhamaad horta qurbaha loo yimaado ummadda kooda dadka wadanka jooga sharaf leh oo nolomeedkooda oo dhacsado shaqeysto oo qabiil iyo waxyaabo iyo quran waxyaabo la mid ah runtii aan war u haynin waa inta badan laakiin dadka dhargay oo koontadooda buuxdo oo macnaha lacag ay shaqeysan iska cunaya oo qurbaha joogaan markaas qabiilad ku dhaqmo oo runtii qabiilkan inta badan koreeyo hadda siyaasiyiin inta badan dadka wadanka jooga siyaasiyiin inta badan hadda kor waxaan dhageysanayaa Sheekh Cabdi Xay oo ka sheekeyn dhahay siyaasiga marka uu rabo inuu kursi karo ayuu qabiilkiisa soo raasada marka kursiga uu helo qabiilku way imaama maanta soo dhaco ayuu qabiilkiisa u imaanaa hadda sidii camal intay joogaan baasbar weyn ay qaateen ilmahooda warka ma hayaan siyaasiyiinta ilmahooda qaar xabsida ku wada jiro dalkay ku laabanayaan dalkay rabaan inay hogaamiyaan ayagoo runtii qabiil kursi ku raasanayaan markay kursiga ay koraan ugu dambeynaysa qabiilkooda markaan ilaa ay kursiga soo dhamaanayaan markay soo dhacaan waxay leeyihiin tulay marka waxaan dhihi lahaa qabiil iyo wax la mid ah qabyaalad iyo qurun iyo aas alt waxay taala qurbaha taala dadka wadanka jooga nadiif ma sha Allah aad fiican okay ma sha Allah gaar ahaan dhalinyarada qurbaha dhalinyarada joogto wadanka aan nadiif ku inta joogo dad badan calaamad soo saaran aan ka saar okay ma sha Allah aad ma satay waxa kale oo jirto maxaa la yiraahdaa hore ina uma qashayn karana kala qaan waxa jirto siyaad barwaagi wadankii uu hayay waxa la gudweyn oo inoo qoday waxa la yiri maxaa ku duugaysaa markaas oo dhaw waxaan ku duugayaa qabiil maanta wixii ka dambeeyay qabiil ma rabo inaan maqlo marka ma u malaynaysaa in dawlad noocaas ah ay qabyaalada lagu ilaabaa inay imaanayso ni war siyaasadda gelisay siyaasad kuma jirin kooda صح macnaha hadda hadii dib loo raaco Soomaaliya horta arintaas waa taariikh qoran oo la wada ogyahay dhamaan inta ogeyn hadda ogaadaan laakiin marka la fiiriyo bariga asaga horta Soomaali ahayd صح ولو عواشة بدن jirtay oo dadka ay inkastoo cawasho dhamaan hadana macnaha dawladda ayada runtii waxyaabo xagga lagu eedeeyay waxyaabo hadda aan lagu eedeyn dawladda Soomaaliya ka dambeeyay oo fiican tahay iyo ayada eedan u jiraan ay hadana waxa moodaa qatoobe kadana qabyaalad topical magalena marka bariga asafun waayo qabiilkii inta goddo duugay god loo qaday ayaa lagu duugay sababta uu waxay ahayd had wadamada aan ku nool reer galbeed aan ku noolahay صار شلنا كسرعة طف مركب ويدسود هذا أنت معناها بيسك كذا كي ما تقبل كل شيء قبل كل شيء أم مجاله لكن بري أساس ما لو يدرتي سبب إنه ما تقولنا طف أو تحدد قرنتاي مركب تي عيد إنها تصلع بس هذا حاليا إنه أنت كي ما أنا حاليا قرعة يقصها هالشيء يسمى مش قبل كبير أما حد قربه وقال البحور يا تعد كل اسمها حلا قولوا أنت كي ماتك كسمايا دي أوريد ولا مش قبل كذا قلبودي ولا مش كي مات بيد أول لوجي معناها حتى سنة بس ما نقصر فيه هاي مركو سؤالها كويدي أحمد لبس سؤال عادي من وحرب مركينا كويديو قبل حمدا ضد بدن فيديو يا شيء مركات في رسي كومنتيال بدن كبحيي كعايي وحيابك لو كسمي inkastoo ay jiraan dad hadana amaana hadana dad badan oo waxa jira negative video ka bixiya comment ka bixiya maxaa ka dhiileed marka dadka niyo horta qofka marka uu meel soo fadhiisto ma aragtay uu hadlay wax ka hadlo bi ka hadlay wuxuu ka hadlay kolba negative iyo positive baa lahaanaysa dad waxaan ka hadlay waxa laga yaabaa negative positive la wada laga yaabaa qof si waa ana waxaan arkaan qof wax una kala yaabaa marka gabadha waxa laga yaabaa ayada hadalka markaan dhageysano dadka oo commentiga qaldan soo qoray waxaan dhihi lahaa qofka marka aragtaan inuu topic noocan ka hadlaayo oo qofka shalay uu ahaan isoo bedel waayo shalay ayada waxa daawanaysa waxa falgaadeynaysa maantana waxa daawanaysa ayada wax amaanaysa qofka hore ha ahaado spelling raba Soomaali la waa marka waxaan dhihi lahaa dadka ayaka gabadhan ka xishooda kama xishoonin hadda ka xishooda laakiin oo baroniga daji waxyar fadada ka daaya gabadhaashina saayni sheegay commentiga qaldan soo qoraysiin aan leedahay waa la qasbay hadda maxaa sax keenay hadal noocaas camal wax fiican ma ahan kadaya hadii kaleeto falgaadashada dib loo wada mas'uulka ma sabay marka waxaan ku weydiinayaa Axmed waxaan ka hadalnay qabiilkii qabyaalada hada videogan iyo gabadha
marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka Soomaaliyeed si guud ah gaar ahaan dhalinyarta kuwa wax barta ama wax bartay ama wax baranaya ee dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga ee dal islaameed yimid iyo Soomaalida guud dhamaantood maxaad ku baraarujin lahayd ama aad u sheegi lahayd سؤال في عام لكن دتك ما قادنا عام سؤال هذا الكيس صح ودتك شغل ملا كداله يشق عبد حياك دالين انت كفتم لكن ما حد لها عن انت قبل ذاك هل يعني اسكن افا dad walaalatihiin gacmaha isqabsada duni horumartaan joognaa kuwa qurbaha jooga la hadlaya duni horumartaan joognaa boonigan dejiya waxaan aan ku dhaqmaysaan naga daaya oo macnaha ismada kooraysiin oo hadalada aan wanaagsan isdhexmarsanay naga daaya qabeelada waayo saacada inay sheegnay meeshan dhigto aragna qaxootiga naga dhigtay aniga qaxootiga naga dhigtay ilmahayna qaxootiga ka dhigtay waalidiinta qaxootiga soo dhigtay marka waxaan dhihi lahaa naga daaya dhibkan kuwa dalka jooga waxaan leeyahay dalkiina ku ekaada iimaansada qabiil waxa man taraayo qabiil dad wax taraayo waa la soo arkay 3 sano ugu dambeysay position Soomaaliya u dhigay صح marka waxaan dhihi lahaa on de halaga cashar halaga barto dunida wax kasta oo cashar ka bartaa hadda wadankan aan joogno Sweden cashar badan oo waxa jira oo runtii marka dhigaysa asleedahay niyo anaka maxaa wax u baran wayn waayo Sweden heer waxay gaartay ay u tahriibaan dadkooda qaaradda America u tahriibaan in muddo kadib way soo laabteen wixii ay xagga ka soo faa'iideen ee dalkooda ku soo celiyeen maanta ubadka waxay ku nool yihiin abni nabadgelyo dhaqaale fiican macnaha fikrada soo qaateen fikrada qashki ay wadankooda keeneen ay ku dhaqmayaan marka waxa fiican horta in dunida wixii dhac waxa laga bartaa 30 sano ugu dambeysay wixii dhacay waxa fiican wax ka barano dhalinyaro ahaan marka sida guud loo hadlo marka waxaan dhihi lahaa dhibka dhacay uu dhacay wixii dhacay ama soo laabanay laakiin hadda kadib ay dhicin arrinta qabiiladana waanada qaatay ee Georgia gacmaha qabsada aad iyo aad u mahadsantahay